عداد مرقستو تصويرتا دنديحا جليستين انتو السرو وحان كعبصد درتا إني حديبو دمن عداد مرقستو تصويرتا دنديحا جليستين انتو السرو وحان كعبصد درتا إني حديبو دمن حبناها دونستود إيو تارين كبقيقة يل تبناها حديبا كويدي هادان دادك كوتش على هاي حبناها دونستود إيو تارين كبقيقة يل تبناها حديبا كويدي هادان دادك كوتش على هاي انت رحيل الدادي الدوي انشراها قلبك انت رحيل الدادي الدوي انشراها قلبك هذان كقدابه وحان دقلكا قديقي هالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحان ديكو سلام يا سلامة إسلامك marka labaad waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair sidii dhaqanka iyo waxa weeye hitaayno ahayd waxaan ku bilaabanaynaa aayado quraana oo inoo akhriyo walaalkeen maxamuud falyatafadal حسن بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلهي هنوقع في عيدها قرآن كاب نوسو تشيدي ولكن محمود سيدا إنه سجوني أما وحويه إنه وضع فردنا ما أنت وحويه إنه وضع قيب سنة فرحد عيدة ما دام إنه نهاي ضد صوماليات كنول ودن كترملكا جارهان مقالة بريمن فرصته وحي نو سامح ويدين إنه يعيد نوسيدي إنه يعيد شري مرولبا aynu u lahayn hidaha laakiinse inagoo ka duulayna ama waxa weeye eegayna duruufta iyo waxa weeye waxaynu ugu xeeran waxaynu garanay inaynu isu nimaadno wada qaybsano farxadda ciidda caruurteennana barro waxa weeye maalinta ciiddu waxay tahay iyo mansabka ay naga joogto marka labaad waxaan jeclahay dadkii soo abaabulay ama waxa weeye soo qaban qaabiyay iyagoo isu diray iskood oo aan cidna waxa weeye dirin inaan ku soo dhaweeyo oo ay kelmadooda ka yiraahdaan marka koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa maxamuud faarax oo isaguna gacan weyn ka geystay abaabulka iyo waxa weeyaan isu soo ururinta dadka intaba aad baan ku soo dhaweynayaa maxamuud faarax. bismillaahi raxmaani raxiim. sidoo xasan sheegay waxa weeye maalinta ciiddu fadligeeda darteed baa isku keentay maadaama Soomaalidii aysan kulanba kala lahayn ama aan la is aragba maalinta inaynu ubadkeena iyo ilmaheena oo sheekaysano oo farxadda kulligeen wadaagno waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada isku xil saartay oo hawshan soo fulisay
anugu intaan ka qabtay baaba iska yaray fikradda xataa dhallinyaradaa lahayd anugu oday baan u ahaa aad baan uga mahad celinayaa in maaragtay sharaftaas aniga gooni la igu magacaabay laakiin rag badan baa ka soo shaqeeyey oo ka mid yahay xasan saki nuuraddiin jaamac haddii la kuuraya shakiib maxamuud cabdiraxmaan ma tirin karo khayr badan allah idin siiyo waxaan idinku soo dhaweynayaa bremen dadka degan iyo kuwa dibadda ka yimidba inaynu maanta isbaranno sheekaysanno ducaysanno isku faraxno waa maalinta keliya ciidda waxaan idin leeyahay tafadal aad baa umahadsantihiin inta kasoo qayb gasho dhan aad buu u mahadsan yahay maxamuud faarax oo isna kelmaddiisa ciidda inala wadaagayey barnaamijka waynu kusii soconaynaa xafladdu hadda inoo bilaabantay fari kama qodna waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh ka mid ah sheekhyada magaalada birman oo isna kelmaddiisa inaga odhan doona falyatafadal xasan xandulle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين آد بالدين سلام يا وجود الظاهر كمان تهلك نسرتني كم مغطى نوركو يا كرامة كم مغطى آد بان إذنكم سلام يا مرلوات سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن مركو هرا عيد وناكسن إلهي هاي نجاق بلا bishii Ramadaan cibaadadii aynu soo sameynay soonkii aynu soo soonnay taraawiixdii aynu soo tukanay tahajjudkii aynu soo tukanay ilaahay kuwa ka aqbala naarta uu ka xoreeyo ilaahay hay naga yeelo marka hore bisha sanadka dambe soo socota Ramadaanna ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo nabadgelyo Allah nagu gaarsiiyo inta markaan ku dhaafo waxaan u mahad celinayaa marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaadna raggii xafladda soo qaban qaabiyay aadka u nuurka badan u sharafta leh in la isugu yimaado xafladdan oo lagu wadaago Soomaalida ay ku wadaagaan inay isu yimaadaan dumar iyo rag odayaal iyo dhalinyaro iyo carruurba la isugu yimaado raggii soo qaban qaabiyay waxaan leeyahay ilaahay ha idinka jazaaisiiyo miisaanka xasanaadka ilaahay ha idinku diro maalinta qiyaame inta haddaan usii dhaafo waxaan kusii darsanayaa un kelmad yar oo ah iska waano waxaanu ka soo baxnay hadda bishii Ramadaan cibaadaynu soo samaynay camal fiican baynu soo samaynay kolley dee shayaadiintu waa iska xixnaayeenoo dembiguna waa iska yaraa camalkuna aad buu u fara badnaa laakiin marka Ramadaantu baxdo sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inoo sheego shayaadiintii la xidhay dib baa loo furfuraa halkii bay ka bilaabayaan markaa shaqadoodii inay qofkii macnaha tashkiiliyaan oo ka tashkiiliyaan cibaadadii salaadii acmaashii khayrka ahaa uu qofku la imanayay intaba inay ka tashkiiliyaan oo waxyaabahan kale ay u tashkiiliyaan markaas taa inaynu macnaha ka digtoonaado oo la soconno oo qofku ogaado waayo waxaa ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala nafta iyo shaydaankuwa inay nafta qofka ku yihiin cadow baa ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala ina nafsa la amaaratun bisuu baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka inaynu taa insha allah dareensanaano oo aynu ogaano sidii aynu bisha Ramadaan u soo cibaadaysan jirnay ama u soominayn ama aynu u tukanaynay inaynu insha allah bilaha kalena halkii uga sii wadno waayo waxaa jirtay xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu nabigu calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed uu dhintay baa waxaa abubakar sidiiq radiyallahu canhu baa markii nabigu dhintay ba asxaabtii isku yaryaceen kadibna way yar murugoodeen qaar baa dabeetana waxayba noqdeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar hadduu dhintay dee salaadii iyo cibaadadii iyo waxba cidima naguma leh abubakar sidiiq radiyallahu canhu wuxuu yidhi markaa qofkii ilaahay caabudayow ilaahay waa nool yahay ina allaha xayun laa yamuut qofkiisa nebi maxamed caabudi jirow nebi maxamed fa innahu qad maat nebi maxamed wuu dhintay markaa macnaha waxaan uga jeedaa hadda qofkii bisha Ramadaan caabudayow bishii Ramadaan tagtay qofkiisa ilaahay caabudayow ilaahay ina allaha xayun laa yamuut ilaahay intaad ka dhimanayso
cibaadadaadii waa lagaa rabaa xataa aataahu lyaqiin ilaa inta naftu kaaga imanayso marka intaasaan idinku boorin lahaa aad baa u mahadsan tihiin wajasaakum allahu khayran waiyaakum wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan xandulle ilaahay naga dhigo kelmadaha waxa weeye waanada iyo wacdiga isugu jira ee uu noo soo jeediyey kuwa ilaahay ku anfaco run ahaantii waxaan jeclahay inaynu sanadkan ama waxa weeye 2 bilood oo soo socda sanadka ciideeda inaynu madal ka weyn iyo dad inta ka badan aynu isugu nimaadno haddii ilaahay ka dhigo aanay noqon tii labaad ama tii saddexaad aynu isugu nimaadno ay noqoto tii aynu mar walba hore uga sii soconno oo ku sii dhiirano inaynu dhammaan biriman iyo nawaaxigeeda ku wada ciidno meel aynu inagu diyaarsannay oo aan cidna aanaynu u daba fadhiisan aad baad u mahadsantihiin waxaan kelmadooda iyagana kusoo dhaweynayaa dhallinyarada firfircoon ee iyaguna ka qayb qaatay waxa weeye hadday noqoto shaqada hadday noqoto abaabulka iyo hadday noqoto waxtarka intaba kelmadiisa waxaan kusoo dhaweynayaa saaxiibkay nuuraddiin falyatafadal mashkuuran mahadsanid aad baad u mahadsantay saaxiibkii saki horta ciid mubaarig assalaamu calaykum horta maanta meesha waxaan isugu imanay waa munaasabad aad u ballaadhan oon soo qaban qaabinay oon ugu talagalnay nacamtii dadku siday u kulmi lahaayeen la isugu iman lahaayeen oo ah dee farxad loo wada dareemi lahaa iminka tusaale ahaan oo kale waddankeenii waxaa laga yaabaa gurigii kaa soo horjeeday inuu de muslim yahay uu yahay walaalka uu yahay familigaaga uu yahay balse laakiinse halkan dee waxaa jira muxuu ahaa dhaqanno kala duwan diimo kala duwan lagama yaabo inaad mar waliba jaanisyadii aad waddankii ku heli jirtay aad ku hesho muxuu ahaa halkan markaa sidaa awgeed waxaan isla garanay anigiiyo asxaabtayda iyo adeer maxamuud waxaan isla garanay in aan soo bandhigno xaflad aad u ballaadhan oon ugu talagalnay ciid ahaan aan ugu talagalnay ayaan ugu talagalnay waxaa kaloo halkan aan uga mahad celinayaa saaxiibadayda qaaliga ee sida wanaagsan ila soo shaqeeyey waxaa kaloo sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan martisharafka qiimaha iyo qaayaha badan leh ee halkan iskugu timiday ee wakhtigoogii qaaliga halkan soo geliyey tani waxay tusaale noo noqonaysaa kuwa dambe ee soo socda hadduu alla yidhaahdo waayo sababtoo ah maanta inagii bilow haddaan isku iman weyno oo cidiba imanba weydo waxaa laga yaabaa kuwa dambe ee hadhow toole inay cidiba imanba weydo laysla qabsanba waayo markaasaa daraaddeed waxaan jecelnahay inaan mar waliba xafladaha iyo muxuuaha dhaqanada iyo wax waliba aan soo bandhigno waxaan leeyahay ciid mubaarak farxad ku ciido sanadkiisana waxaan noo rajaynayaa caafimaad qab iyo cimri dherer asalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay nuuraddiin waynu soo gebagabaysan doonaa waxa weeye insha allahu tacaala waxaynu geli doonaa inaynu farxadda sii guda gallo waxaan kusoo dhaweynayaa isna saaxiibkay jaamac oo isna kelmadiisa ka odhan السلام عليكم دمان والسلام يا بالشوين الصوماليات شرفت له نجسوا أجيبتي أقبلادان عشمادان وفدناي وأنا وح فرحان لما أنت أو الصومالية وأنا قبيل لهاي أوضة قبيلة ووح آذو وفرحه وأنا وح ضدك يدو ذا وح ونكسفوا أبو ريا هذا أنا هذا البلد كله سويت شيء معيو كله عبارك بعد وقديننا laakiin hal kelmad baan rabaa inaan idiin sheego oo ah inay Soomaalidu wax istarto oo ay wax wada qabsato oo ay qurux badnaato oo ay ka muuqato bulshadeynta dadka inta kale ee waddankan ku ah martida marka waxaan soo qaadanayaa hal hays uu soo jeediyay nin inta badan qoraa oo dadka inta badan garanayaan dadka waaweyn waliba garanaya ilaa jaa la dhaho wuxuu yiri anoo jooga magaalada Gaalkacyo waxaan arkay buu yiri nin le reer xirsi ilaahay waalidkood iyo waalidiintooda ha cadaabo buu yiri baan arkay kabacdi wuxuu yiri ninku reer xirsi baana reer xirsi baana marka waan weydiiyay waxaan ku yiri waniyo maxaad u leedahay kelmadda wuxuu yiri dad baa lahaa buu yiri dad baan ka maqlay marka dadka Soomaaliyeedna waxay ku dhaqmaan dad baan ka maqlay adduunkana wax kasta in la hubsado oo la iska fiiriyo baa wanaagsan marka waxaan ugu boorinayaa waliba waxaan aad ugu boorinayaa inaynu wax wada qabsano isku xidhnaano dadka kale ka muuqano Soomaalida hadda waxa moodaa imaan muuqasho badan aan jirin laakiin intaas aad baan inigu boorinayaa intaasuna way iga soo jeedin farxadda ciidda aad baan inigu hambalyeeynaya iyo sida sharafta leh aan iskugu nimi maanta insha Allah waqti kale oo inta ka sii badan oo wada qaadanaynaa aad baa u mahadsantiin dhammaan dadweynaha sharafta leh nagala soo qayb galay marti sharaftan
والسلام عليكم ورحمة الله. aad buu mahadsan yahay jaamac insha allah qadadii baynu sugaynaa oo waxa weeye aynu gudagali doonaa waxaanu ku soo khatimi doonaa xaajiga ama odayaasha odayga inoogu weyn inuu noo soo xidho maxamed ismaaciil fal yatafadal. بسم الله الرحمن الرحيم وحي اللي قرر لها دادك بايري وفريي لكن أنا دادك واحد ليا دادك أنا ما أنت واحد ليا واحد الله نهاي قولي دينا سوق مقابسي إن عسونتي يعني نقول أنت ودن بيسي ويدا سوق صوتا عرفنا قبل أنا تروكله إلى الناس بيسا ما ندكو عصرنا أنا كل واحد ندكو عاوننا وحي على ندكو عاون كم meel aan leenahayna waa inaan samaysanaa way ballaaran doontaa insha allah wuxuu leeyahay bilow tan waxaan u haysanaa iminka bilow inay tahay laakiin inaynu ballaarino waxay u taallaa dadka soomaalida ah ee magaalada Bremen degan marka waxaan rajaynaynaa inaynu taageerno dhalinyarada yaryar ee garatay waxaynu ku garan weynay inaynu ku taageerno oo inaynu qalindaarin oo inaynu tacaynin marka ay bisaas baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi. Waxaan ku soo dhaweynayaa xagga haweenka oo kelmadooda ay ka odhan doonto Rooda Sheekh Ciise fal yatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والد السلام دمانتين بعيد مبارك عيد مبارك ما أنتم حاسكون نبي مناسبة عيدة إن شاء الله تعالى إنه وينين عيد الفطري شعب كريب بريمان إيه أنا كان نبي مقالة دلمن هاوس أو كبحسن بريمان ساندين لعيدنا يعني دين كل نبي أدبان وفرح سنة هاي مناسبة قالقة ما أنت حاسكون نبي دمانتين بقى waxaan u mahad celinayaa insha Allah taala dadka soo qaban qaabiye xafladan quruxda badan ee maanta dadka Soomaalida iyo caruurta iyo haweenka dhamaanba kulmisay aad waxaan ugu mahad celinayaa Maxamuud iyo xaaskiisa iyo dhalinyarada firfircoon dhamaanteedba xafladan soo qaban qaabisay waxaan rajaynayaa insha Allah taala ciideeda iyo ciido kale oo badanba inaan sidaas la mid ah iskugu imaan doono oon caruurta soo farax gelin doono oon dadka inaga baxsan soo casumi doono oon gobolka oo dhan casumi doono aad baan ugu faraxsanahay waan salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkii ugu daracnay intaan durxidadii uduway injiraha qalbiga intaan durxidadii uduway injiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii ugu daracnay intaan durxidadii uduway injiraha qalbiga intaan durxidadii uduway injiraha qalbiga